ciidamada Kenya ayaa sheegay in weerarkan ay u adeegsadeen madaafiic iyo diyaarado kaasi oo lagu qaaday deegaan loogu magac daray Shubo. Goobtaasi la weeraray ayaa qiyaastii 30 kiiloomitir dhanka waqooyi waxay kaga beegan tahay degmada la yiraahdo Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada Kenya ayaa sheegay in hub iyo gawaari badan sidoo kale halkaasi ay ku baabi'iyeen. War-saxaafadeed ka soo baxay Kenya ayaa sidoo kale lagu xusay in ciidamada Kenya ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. waan feejiganahay waan sii wadaynaa bacsiga aynu ku hayno argagixisada ayaa lagu sheegay warkan ka soo baxay KDF barta Twitter-ka AMISOM ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay weerarkaasi la sheegay in 57 dagaalame looga dilay Al-Shabaab halka sidoo kale dagaalyahanno kalena lagu dhaawacay ugu yaraan 57 argagixisa gawaaridooda iyo qalabkooda ayaa la baabiyay waxaana la soo qabtay hub badan ayaa lagu qoray Twitter-ka AMISOM waxay sheegteen iyadoo kaashanaysa ciidamada Soomaaliya ay dalka ka sifayn doonaan Al-Shabaab waa sida ay warka u dhigeen ma jiro wax war oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ay ku beeninayaan ama ay ku xaqiijinayaan weerarkan lagu qaaday duleedka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana la sheegay in looga dilay 57 dagaalame. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Honkebel, Hargeysa.